السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا text technology. halkan maanta waxaan ku baran doonaa qaabka aad isku diiwaangelinayso text technology casharada aad u iibsan karto gaar ahaan casharada secondary-ga. Marka ugu horeysa waxaan u baahanahay inaan haysano browser ama telefoonka aynu ka haysano ama computerka labadaba ka doontaad ka isticmaali kartaa. Waxaan soo furi doonaa browserka computerka inoogu jira. Halkaas sare waxaan ku qori doonaa text.com. waxa soo bixi doona markaa website-kii text baa soo bixi doona. Markuu soo baxo waxa la inooga baahan yahay haddii aad computerka ka isticmaalayso inuu email-kaaga furnaado. Gmail-keena ayaynu ku samaysan doonaa. Gmail-keena wuu furan yahay. Marka waxba ugama baahnin inaan furno. Halkaa ugu sarreysa waxa ku qoran register now. Ima qaybihii casharadii ku jiray platform-ku waa kuwan ama goobta waxbarashada text online-ka ah. Waxaan tagi doonaa gujin doonaa bottonka guduudan ee ay ku qoran tahay register now. Kadibna waxaan oran doonaa okay Google-ka ayaan ku sameysanayaa. Marka Google-ka la igu sameeyaa account-kayga. Marka Google-ka la igu sameeyo waxa la oran doonaa account-kaaga login ku samee. Maadaama account-ka already la inoo sameeyay oo click-ta kaliya account-ka la inoogu sameeyaa waxaan oran doonaa marka login with Google. Haddaad Facebook ku samaysatana waa la mid. Marka login with Google markaan nidhaahno wuxuu iman doonaa account-kii buu iman doonaa. Marka account-keeni baa soo baxaya. meeshan oo maran buu ku keeni doonaa halka calaamada loogada ku taalo ayaad kili garaynaysaa. Markaad kili garayso waxa dhici doona waxa ku soo bixi doona qaybihi kala duwanaa uu ka koobnaa ama casharadii ku jiray. Marka qaybaha category-yadana ku jira waxaan doonayaa inaan tago high school-ka oo kale. Kadibna course-kana hadda ku jira koorsooyin fara badan baa halkan soo gali doona. Course-kan waxaan samayn doonaa waan ku kili garaynaynaa ama waynu ku jiraynaa. Kadibna waxa la keenayaa course-ka macluumaadkiisii iyo xogtiisi baa la keenaya. Marka course-ka macluumaadkiisi xogtiisi la keenayo qaybihi uu ka koobnaa waxaanu samayn karnaa markaan xogtii akhrisano halkan hoose start learning ku qoran tahay ama waxaanu tagi karnaa xaggan sare ay ku qoran tahay start learning. Start learning ka markaan imaado waxa soo bixi doona mathematics form 4 macalinka magaciisi lacagta course-ka aad ku dhiganayso. marka select baa leeyahay subscription. course-ka waxa lagu kala jajabiyay saddex qaybood. hal mar wada qaadan kartaa saddexdana waad u kala qaadan kartaa qaybood. marka ka ugu sareeya waa marka doonaysid dhammaan qaybaha uu course ka koobay oo class-ka form 4-ka ee mathematics form 4-ka dhammaantii waad wada qaadanaysaa. hal mar baad wada iibsan kartaa ama qaybta koowaad ayaad iibsan kartaa. qaybta koowaad aad ku baranayso trigonometry-ga waxaad ku iibsanaysaa 3.5 ayaad ku iibsan kartaa. qaybta labaadna waxaad ku baran doontaa calculus-ka isagana 3.5. qaybta ugu dambaysa waxaad ku iibsan kartaa complex numbers-ka iyo statistics-ka iyo probabilities-ka iyadana $3. marka haddaad saddex u kala iibsanayso 3.5 iyo 3.5 waxay isku noqonayaan 7 iyo 3 waa 10. marka haddii laakiin hal mar wada iibsanayso discount baa lagu siiyay $2 baa laga daayay. marka waxaad ku iibsan kartaa $8. marka labada saddexda hab ee hoose iyo habka ugu sareeya afraad oo dhammaantii ka doonaysid ayaad ku gadan kartaa. tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan hal mar wada iibsado. tusaale ahaan marka waxaan kili garaynayaa all seasons koodan ama qaybaha uu ka koobay course koodan ma doonayaa inaan iibsado. marka waxa la keenayaa qaabka lacagta u bixin lahaa ama hababka lacag bixinta. waxaan ku bixin karaa SAD, waxaan ku bixin karaa e-dahab, waxaan ku bixin karaa Sahal iyo EVC Plus, waxaan ku bixin karaa PayPal. tusaale ahaan waxaan qaadanayaa SAD-kan oo kale. kadibna course-ka gabigiisa waxaad ku iibsan kartaa 68640 waxaad u diri doontaa numberka 505319. marka haddii aad doonaysid inaad ka noqoto qayb ka mid u iibsato waxaad oran kartaa change subscription. marka waxaan doonayaa qaybta ugu horeysa tusaale ahaan inaan iibsado. qaybtii koowaad baan kala garaynayaa halka course-ka 3.5 baan ku iibsanayaa. waxa la leeyahay waxaad ku iibsan kartaa 30,000 iyo 30 shilin. marka system-ku uu check-gareynaya lacagta in laga hayin kale si course-kaaga lagugu fasaxo. marka waa inaad intaa ku tirtaa 30,000 iyo 30 shilin numberka 505319. marka numberkaad ka soo dirtay halkan gelinaysaa. lacagtaad diraysaa numberkaad ka soo dirtay ayaad halkan gelinaysaa marka lacagta intaad dirto. tusaale ahaan kale waxaan gelinayaa numberka 0-gaad ka tagtaa 63 baad ka bilaabi doontaa. marka 0-gaad ka tagtay 63 ka bilowdo ee numberkaaga dhamaystirto waxaad taaban doontaa halkay ku taala submit. markaad submit kili garayso xoogaa buu kaa maqnaan doonaa systemku. kadibna wuxuu kuu sheegi doonaa success buu inagu yidhi happy learning. marka waxaa layna keenay
kooraska qaybtiisa koowaad oo trigonometry ah hadda halkan aan daawan karaa casharadii ama episodadii koorasku uu ka koobnaa marka intaasoo episode buu ka kooban yahay qaybta koowaad waad daawan kartaa dhammaan waa lagu ogoliyay haddaad tiraahdo qaybtan labaad u gudub iyada laguma ogolo qaybta labaad uma gudbi kartid macnaheedu waxa lagu leeyahay subscription required for calculus chapter marka qaybtan koowaad casharkeyga koowaad ama episodeka koowaad baan kali garanayaa halkaasaan ka belay garanaya buttonka ay belay ku taalo belaydaasaan taabanaa macalinka marka episodekii koowaad saa u dhamaystirteen daawado episodekii koowaad ama casharkii koowaad ee trigonometryga green buu noqonayaa saxna way fuulaya marka waxaan u gudbi karaa markaan episodekaas si fiican u fahmeen practice gareeyeen casharkaas si fiican u dhigto waxaan tegi karaa episode 2 gii baa isaguna soo bixi doona halkaasaan ka belay gareyn karaa ama halkaasaan ka belay gareyn karaa si kale ayaynu angleska u sii marka qaabkaas aad u wadaysaa qaybta koowaad haddaad iibsatay qaybaha kalena waad ku darsanaysaa markaad doonayso